أنا ماشان حول أمي إيمان حولها دان ربنا دور ميلودان تقري وأسيق لقبها في وأركتين حول أمي بانين حول واحد سنة أنت نقفلن الحمد لله شو هلا سيو أركتين مركو هلا سيو أركتين وجيجي سمحك أخرستين ساعدي ما تقعنا كم قيناته نينكي وأركتين مركو هلا أيو هذا كنينكي محالي كذا بحي قف محيه دد ربين أو أجيه لكن أنا كنا واربنا سما wiilkeena waa anaga in dhacaan laga qaado oo maxay heeto asigan laga qaado bas aan ku qanacnaa wax kale oo na anfacahay male xoolana dan kamelina anaga inuu laftiisi galti yahay oo dareema inuu la dhashay uu og yahay oo laakiin uu baqdin kala ku jirto ma ka dareenteen waa ka dareen waa ka dareen ninkii horta xogtiisii aan soo aruuriyey walaashiis gabadha cid soo karsatay gabadhoodana waa idiin keeni karaa hadda waa soo saari karaa saakana waa wareystay meelaan ku wareystay idinaa laleehdaa nairobi joogtaa gabadha u dhashay gabadha xamdi la yidhaahdo xamdi cabshir gabadha la yidhaahdona gabadhay u dhashana waa joogtaa iyaduna oo idila hadli doontaa waxa weeye arinta waa soo baarnay ninkan uu kala hadlay wuxuu kala hadlay oo warbixinta aan siinaa waxa weeye intii aan baarista ku waday wuxuu dhahay anigoo 14 jira oo lumay ayaa gabar reer Puntland ay caawisay gabadhii waxaan ku dhahay ka timid waxay tir Puntland baan ka imid marka uu ninka xasafari ahay 14 jir Puntland ma jirin Puntland 98 yaa la aasaasay waa kow laba oo badal halku wuxuu dhahay weladkii lacagta igu jirtay ayaa iga lumay ana 14 jira qof Soomaali joogtay iyo qof Kenya joogtay walad ma lahayn lacagta ku ridato ayadoo 14 jira isagoo 14 jirna Mareykanka ma tigin 2007 uu tagay Mareykanka markii uu deganaa Nairobi gabar buu guursaday hal gabar bay u dhashay way kala tageen cidaan wuxuu la deganaay dabaqa 2000 ee Forest Street ku yaala uu la deganaay taarka cali samatar iyo taarka xiin cali farin ayuu boostolo ka ahaa cidaan waxay ula bixeen abshir waa ku abshiraysanay abshir macna abshir ay ula bixeen qof kasta oo la joogtay xiriyaha qaxootiga iyo qof kasta oo la joogtay ma taqaanaa Nairobi abshir ma u yaqiineen ninkan inta markaan ka soo tago line baa loo gaday line-ka waxaa loogu gaday magaca Cabdiqaadir Maxamed Jaamac qabiilka lagu dhoofiyeyna ee isku dhiibana asharaaf bay ahayd markii la dhoofinayay asharaaf buu isku dhiibay waxyaabaha kale ee cadaynta buuxa ahayd ninkan markii uu soo galay Facebooka oo ka soo bilaabay YouTube-ka wuxuu ka shaqeyn jiray dadka kala lumay wuxuu ka sheekeyn jiray qiso maama Soomaali gabadha la yiraahdo uu la saaraa jiray gabadha la yiraahdo ayaan Xasan Qaasim oo gaal jecelka ah uu la saaraa jiray wuxuu ka sheekeyn jiray kaliya dadka kala lumay shalay marka laga reebo faarka lagu qabtay dhageyso faarka lagu qabtay waxa kamid ahay 14 sano jir anoo ah ayaa gabar reer Puntland caawisa Puntland jeclaa jir 14 sano markuu jeerin ka 14 sano jir anoo ah ayaa waalidkii iga lumay waalid lama isticmaali jirin 14 jir markuu ahaa Mareykanna muu joogin Afrikana waalid jabka la sharci la gashanaa lama isticmaali jirin waa laba qodob oo kala hadlay saddex walaashiis la hadlay waxay tiri bamba gacanta uga qaraxday hadday gacanta bamba ku qaraxdo codku ay isbaqashinaya hadday bamba ku qaraxdo ya oo gacanta bamba ay uga qaraxdo way go'ay maahan hal far go'ay mayso bamba hal far kuma go'do gacanta faraha dhana go'ay
faraha dhan agu ay fiir sida loo kala hadlo waxa la soo loo qarnaa fiir marka codka walaashiisa sida dhageysto marka hore intaas horta arinta kale wuxuu yiri maamada hal ii keeno way halay haddana wuxuu yiri dhigana ma ogol ciyaal maan haddii uu sadii ana ogolaynba ila baar maamada waxa loo keenaa waxbana marka si baar waxa saddex qofood ka socotay farxiye kamid inuu balooga aan soo ogaad dadkii kala hadlaayay hore wala xaajooda arintiina inuu baloog wada geliyo haday beenta farxiye iyo jooj farxiye إنه ما تصنت ظاهر حك بدن آيات سو أرورس طبعا أنا كو ما تصنتها وقت قاعد جلسي حك تاسي مهم كأ إنه وأنا آذان أقول أحسن هاي أنت أسي إنك بدن طبعا رجين دونا وارون ضد بدن أو أن أدري أما هذان ضد وريالا أما ضد عادي أو سوشيال ميديا عن كأ أما ضد إهلكو قاركو تسكتي إنه لحيني لحريرين مركا أي إنه information كقاركود مركا أي وبلابين أو ميل لح أي مرايان قاركود ضد بدن واي جرتا واي بلوك أي سارين وحابة كم إذا جبر أو ما مضى أي درشي أو هذا ضلك كمقن ضد كو بلوك ساري كم إتها وارون أرنتاس حقيقة جيرو waxaa 2007 ee idilay meeqa jiro waxa asaga horta daani horta markuu sheego gabadha yiriista uu dhalay anaga haysanay heerka way soo tuureen anaga korsanada Mareykan inoo joogtaa oga asagana wuxuu ahay dadka baloo daaleen oo walaalkii jiimu warar badan oo siraha bixinin daal cali soo korgaysa walaalkii jiimu dheeli jir jiim heere jiimu ahay boostolna waa ahay maya heeb qaataaro mar uu shaqeynay oo meesha masuul looga dhigay kadibna uu ka soo tagay waxbarasho if altar taarku waa uu ka shaqeynay dadka oo boostada geegeeyo oo yiraahdo ina taarka lagu fadhiya soo baxo aha boostolkaas aan dhahaa may fahmin okay qiyaas marka da'diisa 2007 marka dhoofaysi da'diisa qiyaas walaalkay taariikhda shanaaba ku aqaan maxaa ku yeelaaday ay sheeg walaalkay wuxuu dhashay sideetan iyo wuxuu dhashay iyo todobadii sideetan iyo todoba soo ku dhala kara wuxuu ku yiri ba anigoo 14 jir ahaan beentis sideetan todobadii dhashay soo ku dhala kara FMC qodobkaasna waa been 2007 jiin ma jirin soo Nairobi jiinba kama jirinba jiinba lama sameeyninba hadalka moogta anaga buntland 14 sano jiray awalada iga lumay fasan bas ku bedelnay waalidkii iga lumay buntland jirta ana 14 jira 2007 muu jiray muxuu jiray okay 9 iyo 3 muu jiray 14 sano buntland 3 ma jirto beentis okay waayay wuxuu yiri anigoo 14 jir ayaa gabar ma jeerteen aan lumay iqaaday ana kula hadlo 83 yaan dhashay now yiri ma idinkaadi wuxuu ku dhacay ninkan anigoo 14 jir ayaa wuxuu yiri intaan lumay gabar reer buntland oo ma jeerteen ay caawisi daahiro beentis waa media isaga badsanaa beentis waaye